Asalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada insha Allah maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago rooti caafimaadka u fiican aan sameysanayo insha Allah rootigan waxaa ka sameyn doonaa mushaali oo ka sameysan masago iyo qamadi iyo flaxseed iyo chia seed insha Allah iyo waxaan ku darsan doonaa galey iyo bur iyo boorash intaas insha Allah ka sameynaya waxaan ka bilaawdaa hadda koob bur ah iyo nus koob oo mushaalida ah ka sameysan masagada iyo qamadiga iyo galey oo shiidan ayadana nus koob in yaraa ka reebay haddaad rabtid waa iska dayn kartaa muhiim ma ahan galeyda flaxseed aan ku darsaday hal qaando iyo chia seed ayadana hal qaando waxaa kaloo ku darsanaya insha Allah boorash madow oo leh buunshi leh boorashka aad uu muhiim ugu yahay inaad ku dartid waxyaabaha kale hadaa haysan xataa boorashka rootiga markasta inaad ku darsatid iyo waxaan ku darsanayaa qaando yar oo cusbo ah waxaa idinka ilaaway boorashka aan ku daray waa 3 malqaacadood oo buuxa malqaacada cuntada lagu cuno oo kale aan ku cabirey iyo qaado sokora qaando yar oo cusbo ah mida ugu yar iyo 1 malqaacad oo sokora marka insha Allah hadda waxaa ku darsanaa waxay tahay khamiirka 1 malqaacad oo khamiira khamiirka nooca isticmaalaya waa noocaas oo budada ah marka hore waxaa rabaa khamiirka inaan qasto kabacdina aan ku darsado marka asxaabi la socod wanaagsan fadlan haddaa fiidiyogii ugu soo gaara fiirsanaysid wax kaa codsanaya inaad subscribe ii saarta ay dhiirigelisid haddii hore ay igu saartana aad iyo aad u mahadsantahay marka asxaabi soo dhawaada insha Allah ka faa'iideysi wacan hal iska faa'iideysto biyaha isticmaala waa biyo qandaca koob biyo qandaca ah meesha igu diyaarsan marka insha Allah hadduu igu yaraadana waa kusoo darsanaya haddii kalena uu igu filnaadana asaga ku xashanaya marka waa la soconaysiin waxaa isticmaalaa waxay tahay saliid cadeey oo 2 malqaacadood ah haddii aad heli kartid ama ay ku taalo waxaa kaga haboon olive oil ama saliid saytuun laakiin hadda aan iima diyaarsaneyn marka insha Allah biyahan kiskis ugu darsanaya aan ku qasanaya waa ku wada daray biyihii weli waxaa dareemaa biyo kalena u baahanaya marka in yar aan ku darsanaya haddii aan xoogaa isku walaaqa ka bacdi qaandada le iskula rafaajinaya waa kana biyo kala kusoo shubtay marka waxaa ku darsaday si aayar rabaa inaan u isticmaalo 2 qaando qaandada laftarkeeda biyaha lagu cabiraya marka asxaabi 2 qaando unbaa kusoo rifaajiyey biyihii marka waa kana markii aan soo yara xashay waa daboolay si u khamiiro kabacdina birtaana ku dubayaa birtaa saliid iska marsaday kadib marka uu nus saac uu xoogaa uu soo khamiiro maadaama khamiir yar aan ku daray nus saac kadib insha Allah aan birta ku ridan doonaa kadib haddana nus saac kala sugaya inuu birta ku jiro uu ku khamiiro asagoo birta ku jira kabacdi foornada gelinaa insha Allah waa kana cajiinkii uu jilicsan yahay saas camal inuu u jilcan yahay muhiim ah oo aad wax adag ka dhigin markaa 3 qaybooda u kala qaybinaya
saddex xabo isla egaa ka dhige. marka asxaabi saa marka ugu diyaariyo kabacdi waa iska daboolaa waa sugayaa insha Allah markuu soo maartay fuuro maartay hadana oo kana hadda usoo fuuray waxaan dusha ka marinayaa waxa waaye ukun oo maartay qaybteeda jaalaha aan soo qasay haddii arti caana dusha ka marin kartaa waxaa artid ana hadda ukuntaana marinayaa si maartay uu qurux badnaado korkiisa. haddana waa dhigay waa daboolay kabacdi wuu soo fuuray haddana waa ujeedaan sidii hore uu kasii fuuray. waxaa ku shubtay waxaa waaye xabo sowda si ay u yara qurxiso maaragtay xabo sowda ama sisin wixii ahaysid aad dusha kaga darsan kartaa. marka waa soo dubay rooti waa kana maasha Allah waxaa kusoo dubay 200 wuxuu ku jiray nus saac ama maaragtay 25 daqiiqo intay ahayd ma xasuusti laakiin wax saas oo kale ah. marka insha Allah intii kugu filanba maartay isticmaali kartaa. wakaas asxaabi rootigaas quruxda badan si slice u jaranaynaa. mindidan ma ahan tii loogu talagalay slice in lagu jaro rootiga laakiin maasha Allah indo maartay xarbina ay tusabis markuu qabooba fiican in la jarjaro maartay hadda waxa laga yaabaa inuu ka jabo ama maartay xoogaa maartay uu si isla eg u jarmi waayo laakiin markuu qaboobo si qurux badan u jarmaaya. marka asxaabi insha Allah khayr badan aan idin rajeynayaa. rootigan cajiibka calooshu jilciya hala tijaabiyo qofkii raba falna hadaa ka heshay like saar insha Allah waa kaasaa macsara dhinac ka soo saaray. haddii artidna waxaa isticmaali kartaa butter waxaa artaa ku cuni kartaa. marka khayr badan aan idin rajeynaa. assalaamu calaykum.